dagaalkaas oo aad u cusla ayaa xalay waxa uu ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana uu u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerareen deegaanka Bariire oo hoos taga degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo toddobaad ka hor ay ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa daram ay la wareegeen. Waxaana dadka deegaanka ee idaacadda Risaalah ee magaalada Muqdisho ay u sheegeen in halkaas uu ka dhacay dagaal xooggan oo socday muddo ku dhow saacad. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose iyo waxa ay sheegeen in dagaalkii xalay ay weerarkii xalay ay kusoo qaadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab deegaanka Bariire oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iska difaaceen isla markaana khasaare ay ku gaarsiiyeen. Khasaaraha labada dhinac ka soo gaaray dagaalkii xalay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-Shabaab weli xog lagama hayo, maadaama xilli habeen ah ay ahayd isla markaana dadka ku nool deegaanka Bariire badi ay wada jiifeen. Wararkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaraya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay halkaas ka wadaan dhaqdhaqaaq ciidan isla markaana ay ku doonayaan ama ay ku baadigoobayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee xalay weerar ku soo qaaday deegaanka Bariire. Taliyaha ciidamada daram ee gacanta ku haya deegaanka Bariire ee Shabeellaha Hoose ayaa maalin ka hor waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dhowaan la wareegay deegaanka Bariire ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas sida deegaanka Owdheegle iyo deegaano kale, isla markaana ay doonayaan inay ka saaraan ururka Al-Shabaab. Ha yeeshee ay muuqato in ay weli jiraan culays dhanka amniga ah, isla markaana maalmo ka hor sidan oo kale xilli habeen ah Al-Shabaab ee weerar ku soo qaadeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xaaladda guud ee saaka deegaanka ayaa aad u degan, waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ku baadigoobayaan rag ka tirsan Al-Shabaab ee xalay weerar ku soo qaaday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.